الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. caawa ay taariikhda ay tahay 12 bisha August 2019 waxaa sharaf weyn u ah gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland in ay dadka reer Jubbaland u soo bandhigaan natiijadii ugu slayd ama ugu weyneyd ama ugu muhiimsanayd ee ka soo baxday shaqadii uu gudigu hayay muddadii dhowrka bilood ahayd ee la soo dhaafay taas oo runtii maraaxil badan soo martay marxaladii ugu horeysay gudiga magacawgiisii iyo diyaarintii gudiga ayay ahayd marxaladii ku xigtana waxay ahayd marxaladii xeerar dejinta iyo shuruucda gudiga uu ku shaqayn lahaa ee la xiriirta hanaanka doorashada marxaladii saddexaadna waxay ahayd marxaladii la tashiga dadweynaha iyo wacyigelinta oo ay gudigu ku safarra ugu kala tageen degmooyinka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Jubbaland marxaladii ku xigtay waxay ahayd marxaladii in odayaashii dhaqanka la isu keeno oo ay ku soo kulmaan dhammaantood magaalada Kismaayo si ay u soo xulaan xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowladda Jubbaland odayaasha muddo 20 beri ah ayay haysteen oo ay ku mashquulsanaayeen arintaas kadibna waxay runtii ay keeneen wixii laga sugayay oo ahaa inay soo xulaan xubnihii u matali lahaa beelahooda baarlamaanka sida ku qoran xeerka ama habraaca doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa markii ay odayaasha ka soo dhammaatay runtii ay gudigu ka howlgaleen wejigii labaad diyaarinta xubnaha baarlamaanka kaas oo ay runtii kala qayb galeen oo ay la joogeen odayaasha dhaqanku laftoodu marka waxaan odhan karaa maanta caawa waxaan joognaa guul waxa ay guul u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay guul u tahay shacabka iyo ummadda reer Jubbaland waxaan runtii aan ugu hambalyeeynaa gudiga sharafta leh juhdigaas faraha badan ee ay soo qabteen oo aan ku ammaanayo inay marxalad adag ay runtii hawlo badan ay soo mareen maanta ama caawa waxa aan haysanaa oo aan runtii gudigu si officially ah uu rabaa inuu ugu dhawaaqo xubnihii baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland baarlamaanka labaad aan ka shaqeynayna waayahan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiye ku-xigeenka oo inoo akhrin doona haddii Ilaahay yiraahdo bayaanka iyo magacyadaba si ay aan ugu marino shacabka reer Jubbaland meediyaha xildhibaanadooda cusub tirada xildhibaanada hadda diyaarka ah ee caawa la shaacinayo waa 73 xildhibaan guud ahaan xubnaha xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland waa 75 waxaa ka maqan oo aanan weli shaacinin 2 xubnood oo arrimo farsamo dib nooga dhacay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yiraahdo inaan ayagana aan u shaacin doono si ay uga qayb galaan shaqooyinka u yaala baarlamaanka arintaas waa inta waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo runtii anigoo magaca gudiga ku hadlaaya xubnaha cusub fursadda u helay inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan leeyahay hambalyo shaqada culus ay sugaysana Ilaahay ha u fududeeyo soo dhaw mahadsantiin magacayga waxaa la yidhaha Axmed Cumar Maxamed waxaana gudoomiye ku-xigeenka gudiga doorashooyinka Jubbaland waxaan u mahadcelinaa gudoomiyaha iyo tiimka intiisa kale oo hawl badan ka soo qabtay meesha ay shaqada joogto caaw marka waxaan rabaa inaan akhriyo xildhibaanadii baarlamaanka Jubbaland baarlamaanka labaad ee Jubbaland 2019 marka dilay waxay u qorantahay sidan
odayaasha dhaqanka Jubbaland waxay muddo 20 cisho ah ku mashquulsanaayeen soo xulista xildhibaanada xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Jubbaland. odayaashu waxay liiska xubnahaas u soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka si waafaqsan hanaanka doorashooyinka Jubbaland. guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka oo ay korjoogteynayaan 5 ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka soo kala jeeda 5 beelood oo ku beesgaraysan 4.5ka waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 12 Agoosto 2019 soo gabagabeeyeen xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowladda Jubbaland. haddaba guddigu wuxuu si rasmi ah u shaacinayaa magacyada xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowladda Jubbaland. 1 Abdisalaan Xasan Warsame, Abdijabbaar Jaamac Cilmi. 3 Abdirashiid Diiriye Cismaan. 4 Abshiro Axmed Kadiye. 5 Hiirad Ismaaciil Maxamed. 6 Bashiir Axmed Cumar. 7 Maxamuud Axmed Warsame. 8 Musdaf Maamow Geedi. 9 Sheekh Maxamed Cabdisalaam. 10 Ismaaciil Cabdi Keero. 11 Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan. 12 Xuseen Shiinow Cali. 13 Isaaq Maxamed Xasan. 14 Isaaq Xuseen Ibraahim. 15 Mukhtaar Xaaji Maxamed. 16 Farxaan Cabdulaahi Maxamed. 17 Axmed Shariif Shucayb. 18 Cumar Xasan Obo. 19 Cabdi Maxamed Obo. 20 Foos Cali Cabdiraxmaan. 21 Cabbaas Cali Ibraahim. 22 Khaliif Haashim Nuur Geedi. 23 Cali Cabdulaahi Ibraahim. 24 Faadumo Cali Cabdikariim. 25 Salaad Cumar Magange. 26 Cabdi Baaley Xuseen. 27 Khadiijo Axmed Ibraahim. 28 Cabdinuur Cali Aadan. 29 Cabdiraxmaan Cashir Maxamuud. 30 Cabdirisaaq Maxamed Cali Maxamuud. 31 Cabdirashiid Xasan Faarax. 32 Maxamuud Cali Shire. 33 Cabdiraxmaan Xaaji Cabdiqaadir. 34 Cabdinaasir Aadan Maxamed. 35 Riyaaq Cabdi Xasan. 36 Shukri Saalax Cabdulaahi. 37 Cali Cabdi Maxamuud. 38 Sahra Ibraahim Dable. 39 Aadan Maxamuud Hire. 40 Cabdi Xiish Shide. 41 Maxamed Cabdi Naasir. 42 Cabdulaahi Cismaan Maxamuud. 43 Shukri Weyrax Kaariye. 44 Shukri Xareed Xuseen. 45 Cabdulaahi Wacdaar Xasan. 46 Cabdi Geedi Maxamed. 47 Maxamed Maxamuud Faarax. 48 Xuseen Xirsi Axmed. 49 Aadan Xareed Cabdi. 50 Geele Maxamed Aadan. 51 Xasan Shacbaan Madow. 52 Deeqa Aadan Nadiir. 53 Sheekh Cabdi Yuusuf Cali. 54 Cabdikariim Sheekh Cilmi. 55 Dr. Shire Cabdi Maxamed. 56 Bile Cabdille Cabdi. 57 Cabdi Yarow Xuseen. 58 Faarax Ibraahim Xasan. 59 Cali Maxamed Cabdulle. 60 Aadan Khaliif Yuusuf. 61 Cabdi Maxamed Cabdi. 62 Bashiir Faaqid Buraale. 63 Jaamac Cabdi Guure. 64 Yuusuf Maxamed Gurxan. 65
maxamed daa'uud cumar 66 maxamed barre cali 67 yuusuf cabdi wardheere 68 cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf 69 maxamed ibraahim cali 70 maxamed afey maxamuud 71 naasir cabdi muumin 72 axmed iftiin maxamuud 73 caasha cali bashiir